warbixintan oo lagu daabacay bogga rasmiga ah ee hay'adda lacagta adduunka ayaa lagu yiri mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo hay'adda lacagta adduunka waxa ay wada gaareen heshiis lagu dhameystirayo dib u eegista koowaad ee wajiga saddexaad ee kooxda la socodka barnaamijka deen cafinta Soomaaliya SMB3. mas'uuliyiintu waxa ay sii wadeen qorshahooda hirgelinta cabirka dib u eegista kaasoo taageeraya waajib gudasho lagu qanci karo iyadoo loo marayo wajiga saddexaad ee barnaamijka la socodka Soomaaliya. hay'adda lacagta adduunka waxay qabtaa rajo weyn oo ku aadan dhamaystirka wajiga saddexaad ee barnaamijka kooxda la socodka Soomaaliya iyo in Soomaaliya u dhaqaaqdo barta go'aan qaadashada deymaha markaasoo la eegayo hal abuurka wadamada faqriga ah ee deymaha galay HIBC Initiative. kooxda hay'adda lacagta adduunka oo uu hogaaminayo Maxamed Alxaaji ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay mas'uuliyiinta Soomaaliya 1 ilaa 6 bishan December waxaana ay isla garteen ka gudbidda wajiga koowaad ee heerka saddexaad ee barnaamijka la socodka Soomaaliya oo loogu talagalay inuu socdo 12 bilood oo ka soo bilowday bishii May ee sanadkan kuna eg bisha April ee sanadka soo aadan ee 2019. dhammaadka booqashada kadib waxaa hogaamiyihii wafdiga Maxamed Alxaaji uu yiri doodii miro dhalka ahayd ee ay wada yeesheen kooxda IMF iyo mas'uuliyiintii Soomaaliya waxa ay ku heshiiyeen dhamaystirka dib u eegista koowaad ee wajiga saddexaad ee barnaamijka deen cafinta. heshiiskan waa inuu saxiixaa agaasimaha maamulka IMF oo aan ka rajeynayo in uu tixgeliyo warbixinta kooxda ee dib u eegista koowaad ee barnaamijka la socodka Soomaaliya heerkiisa saddexaad horaanta 2019. dhaqaalaha waa uu soo kabanayaa sanadkan 2018 marka loo eego labadii sano ee ka horeysay ee 2016 iyo 17 oo dalka ay abaaro ku dhufteen kadib roobkii oo sidii la rabay u da'ay. waxa uu taageeray soo kabashada dhaqaalaha si gaar ah beeraha iyo xoolaha. tani waxa ay hogaamisay maciishadii cuntada oo aad u kacsaneed inay hoos u dhacdo. howlaha la xiriira dhismaha, ganacsiga, isgaarsiinta iyo qaybaha kale ee adeegyada ayaa kordhay waxaana la rajeynayaa inay joogto ahaadaan. dakhliga gudaha dalka Soomaaliya waa uu kordhay 3.1 marka loo eego sanadkii 2017 oo uu ahaa 2.3. sicirka ayaa hoos u dhacay 3.5 2018 marka loo eego sanadkii hore oo uu ahaa 5.5. si guud marka loo eego dakhliga gudaha sanadka 2018 ilaa bishii September aad ayuu u kordhay. lacagtii la filayay in ka badan 8 milyan oo dollar ayaa ku korortay oo dheeri ah. ilaa bishii June dakhliga Soomaaliya waxa ku kordhayay bil walba 2.3 milyan oo dollar waxaana ay muujinaysaa ururinta dakhliga inuu xoogeysanayo. inkastoo xaalad adag lagu jiro haddana hanaanka uu ku socdo barnaamijka la socodka Soomaaliya waa mid xoogan. kooxda IMF waxa ay soo dhaweynayaan sida ay uga go'an tahay mas'uuliyiinta Soomaaliya horumarinta hanaanka canshuur qaadista 2018 iyo in la sii ballaariyo 2019 canshuuraha iyadoo la hubinayo habka loo bixinayo lacagaha. mas'uuliyiinta Soomaaliya waxa ay horumar ka sameeyeen hirgelinta tallaabooyinka taageeraya sameynta lacagta cusub ayaa lagu yiri warbixinta. kooxda IMF waxa ay taageerayaan dadaalada mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee sii wadida in la hubiyo in deeq bixiyayaasha ay maalgeliyaan mashruuca dib u habeynta lacagta waddanka.